waftigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cadde ee baryahanba ku sugnaa deegaanada xeebta galbeedka Soomaaliland ayaa dadweynaha reer Geerisa kala qayb galay salaad roob doon ah oo laga oogay deegaanada Geerisa iyo farda lagu xidh oo ka tirsan degmada lagu haya salaadaasi kadib wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde ayaa ummadaasi Ilaahay uga baryay in uu il naxariis leh ku soo eego waxayna waftigani dadka barakacayaasha halkaasi ugu qaybiyeen sonkor timir buskudka nafaqaysan caano iyo biyo qaar kamid ah qoysaska tabaalaysan ee ku sugan deegaankaasi oo waftigani cabasho u jeediyay ayaa waxa hadalladooda kamid ahaa حشرك حنا جيدا ساون هوستيت هذا قف بيصير حد كقسين حاجات وقعه مو قلنا كم بختنا هلك كان حقه هرنا وحنا لو مريا ما انا قلنا جد ما ركتي بابورنا حلو ما قاضي انا هو بجر ساس كوير wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Abdullaahi Faarax Meedhane wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Daahir Dhimbil gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha qaranka Maxamed Mixile Boqorre iyo taliyaha sare ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Admiral Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa iyaguna dadweynaha halkaasi kala hadlay geesta kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ay ka soo jawaabeen baaqi ay dhawaanta jeediyeen iskaashatada gaadiidka waaweyn ee Tawakkal iyo qaar kamid ah ganacsatada gobolka Salel kuwaasi oo iyagu gurmadka dadkan kaga qayb galay gaadiidka xamuulka ee dadka lagu soo daabulayo iyo booyada biya oo ay ugu deeqeen marka runtii waliba bulshadana waa bulsho saddexda wadamo isku xiriireen haday tahay Djibouti Soomaaliland iyo Itoobiya reer guraagood ma kala socna xuduudna ma kala laha marka waa la soo guuraa marka dhawaatada waxay dhacday dadkii deegaanada kala jira xataa ay soo guuraan oo yimaadeen doorkii yimaadeen in halkana dhawaatada dib ugu dhacday oo midro guraagay ay ku mutaysteen oo ay roob la'aan xaggeena hore iyagu roob la'aan weyn marka intaas runtii waxay culays siyaada marka dawladda jarkana waa baaqo marka laga yimaado baaqaas dawladaha gobolka ama wadamada Djibouti iyo Soomaalida Itoobiya oo kale toos magaalada hadashay oo arrinta waa reer wada marka loo eego baaxadda leedahay iyo socodka bulshooyinka ma ka wada hadashay markaas wargelin fiican baa la siiyay waan u kalsoonahay talabaad waxaan ka jeclaan inuu mahad celiyo Ilaahay baa mahad leh iskaashada gaadiidka ee Sayla iyo Caddo Tawakkal runtii 20 baabuur oo aanay lacag kala mid naga qaadin ku tabarucay meeshaan maraynaba dadka iyo xoolaha waan ku qorayno oo raashinkeena cunaan mooyaan aan wax kale weydiinin iskaashada runtii Ilaahay ha ka saasiyo aad baan ugu mahadnaqayaa malaayiinta baabuur ee joogta wadankeena 20 baabuur baan ka haynaa wax tabaruca waxaan yeelay jeclay kuwa kale ee gaadiidleyda ee baabuurta inay ku daydaan ay muxuu la garab garaan gudiyada Maxamed Awaala Daahir Radio Hargeysa magaalada Saylac